dowladda Kenya ayaa shaacisay inay xirayso xerada ugu weyn ee qaxootiga caalamka ee Dadaab. dowladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay xirto xerada qaxootiga ugu weyn caalamka ee Dadaab oo hoy u ah ilaa 230,000 oo badankood Soomaali ah. dokumentiyo qarsoodi oo ay heshay wakaaladda wararka ee AFP ayaa muujinaya in Kenya ay doonayso inay xirto xeradaasi bilaha soo socda. xerada qaxootiga ee Dadaab oo ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay hoy u ahayd 100,000 oo qaxooti Soomaali ah ayaa lagu wadaa in si toos ah loo xiro dhamaadka bisha August ee sanadkan. warar hoose oo laga helay laanta qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegaya in Kenya ay ku wargelisay xilliga rasmiga ah ee gebi ahaanba ay xirayso xeryahaasi. dowladda Kenya ayaa sababay u xirayso xeryaha Dadaab ku sheegtay in halkaasi laga soo abaabulo weerar al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi. dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda UNHCR ayaa sanadkii 2013 ku heshiiyay qorshe qaxootiga ku jira xeryahaasi dib dalkooda loogu celinayo iyagoo aan la qasbin. waxaana UNHCR ay sheegtay in dad ka badan 75,000 oo qaxooti Soomaaliya ay ku guuleysatay inay dib ugu soo celiso gudaha Soomaaliya. xiritaanka xeryaha Dadaab ayaa saameyn ku yeelan doonta 100,000 oo qaxooti Soomaaliya iyadoo arrintaasina ay walaac xooggan ka muujiyeen qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini'aadanimo. ciidamada dowladda Kenya ayaa burburiyay xarumo shirkad oo ku yaala deegaan hoostaga gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. waxaa xalay la gubay xaruntii shirkadda Hormuud Telecom ee tuulada Jaldeys oo ka tirsan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. ma jiro wax khasaare nafeed oo ka dhashay duqeynta, waxaase burburay dhismihii shirkadda iyo dhammaan agabkii isgaarsiineed ee ay ku shaqaynaysa xarunta oo ka kooban dhismo BTS, Links, Motors iyo agabkii kale ee saytka yiilay. waxaa sidoo kale waxyeello xooggan soo gaartay taawarada labada ah ee halkaa ka dhisnaa iyo taawarada shirkado kale. waxaa hadda ka maqan isgaarsiintii Dhobley, Jaldeys, Diif iyo 7 sayt oo ka tirsan magaalada Dhobley iyo tuulooyinka hoos yimaada. ciidanka Kenya waxay saldhig ugu weyn gobolka Jubbooyinka ku leeyihiin tuulada Taabta oo ka tirsan isla degmada Afmadow una dhow xarunta la gubay ee shirkadda Hormuud. arbacadii la soo dhaafay oo ku beegan Maaj 20, 2019 ayaa ciidanka Kenya oo isticmaalaya helicopters gunship waxa ay duqeyn u geysteen xarunta shirkadda Hormuud ee Xiise Uguur oo ka tirsan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, taasoo ka dhigan in muddo isbuuc ah ay ciidanka Kenya ay fuliyeen duqeyntii labaad. ujeeddada ay ciidanka Kenya ka leeyihiin burburinta xarumaha isgaarsiinta ayaa lagu sheegay inay tahay in ay isgaarsiin la'aan ka dhigaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee xuduudda u dhow sida Dhobley, Beled Xaawo iyo Ceelwaaq. ciidanka Kenya ayaa horey u burburiyay xarumaha ay leedahay shirkadda Hormuud oo kala ah Cali Bulley, Khadiijo Xaaji, Ceel Bande, Dhuyac Garoon, Geriley iyo Dhamase oo ka tirsan gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo. qaramada midoobay ayaa muddo kordhin hor leh u sameynaysa howlgalkeeda Soomaaliya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay muddo kordhin hal sano ah u sameeyaan howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANZOM. magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay ayaa waxaa la filayaa inay isugu yimaadaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa taageero siiya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka nabadeynta midowga Afrika ee AMISOM. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sanadkii 2017 soo saaray qaraar la doonayo in ciidamada AMISOM looga saaro gudaha Soomaaliya sanadka markuu yahay 2020. waxaana golaha uu sheegay in la xoojinayo taageerada la siiyo ciidamada Soomaaliya si ay ula wareegaan mas'uuliyadda ammaanka dalka. muddo kordhinta lagu wado in golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sameeyaan xafiiska AMISOM ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli uusan erga qaramada midoobay u joogin Soomaaliya, iyadoo dhammaadkii sanadkii hore dowladda Soomaaliya ay erisay Nicholas Haysom oo ahaa wakiilkii gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.